kusoo dhawaada daawadayaal qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah beelweynta jaamac siyaad oo go'aano culus ka qaadatay halganka SSC Qaatumo iyo ciidanka maamulka Somaliland ee weli ku dhuumaaleysanayo deegaano ka tirsan gobolka Sool xuqaasha iyo waxgaradka beelweynta jaamac siyaad ee dhulbahante oo uu horkacayay duqa Laasacaanood oo si rasmi ah u dhaariyay gudoomiyaasha deegaanada Tuulo Samakaab Dhabansaar iyo deegaanada kale ee galbeedka Laasacaanood kuwaasi oo ku dhaartay in hadda kadib aysan la shaqayn doonin maamulka Somaliland xitaa haddii lacago badan oo laaluusha ay u soo bandhigaan waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay maamulka Somaliland inaanan la shaqayn doonin lacagna ka qaadan doonin mid la shaqeeyana lacag ka qaadan doona la shaqeynay mid la shaqeeyana lacag ka qaadan lana shaqeyn doonin halganka SSC iyo horumarkiisana aan daacad u ahay halganka SSC iyo horumarkiisa aan daacad u ahay ma wallahi ma billahi ma tallahi Allahu akbar gudoomiyaasha deegaanada Tuulo Samakaab Dhabansaar iyo Goori iyo deegaanada kale ee galbeedka Laasacaanood oo wacad ku maray in aysan la shaqayn doonin maamulka Somaliland sidoo kalena ku dhaartay kitaabka Quraanka in wixii hadda ka dambeeyo ay xoojin doonaan halganka SSC Qaatumo wararkii ugu dambeeyay ciidamada Somaliland iyo ciidanka xaq u dirirka oo wali isku horfadhiyo furimaha dagaalka qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan daawade haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownaa daawadayaal beelweynta jaamac siyaad ee dhulbahante ayaa waxa uu bilaabay dhaqdhaqaaq cusub oo lagu xoojinayo halganka SSC Qaatumo kadib markii ciidamada maamulka Somaliland lagu guuleystay in laga saaro magaalada Laasacaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo oo halganka badankii uu ka soconayo deegaanada kale ee hoostaga gobolka Sool oo la doonayo in maalmahan ugu soo aadan laga saaro maamulka Somaliland xuqaasha iyo waxgaradka beesha jaamac siyaad oo uu horkacayo duqa degmada Laasacaanood mudane Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa waxaa magaalada Laasacaanood maanta oo Jimco ahayd ay kulan kula qaateen gudoomiyaasha deegaanada Tuulo Samakaab Dhabansaar iyo Goori Ari Cadeeye iyo waliba sidoo kale deegaanada ku yaalo galbeedka Laasacaanood gudoomiyaashan ayaa ujeedka lagu yeeray ee beesha jaamac siyaad ay ula kulantay waxay ahayd in ay cadeeyaan hadda kadib inaysan la shaqayn doonin maamulka SNM sidoo kalena ay si toos ah ugu dhaartaan Quraanka Kariimka in maamulkaasi xiriirka ay u jari doonaan horgal la shaqeeyo iyo waliba iyo cid kale oo ka soo jeedo beesha Isaaqba in aysan la shaqayn doonin gudoomiyaasha ayaa mid ugu dhaartay kitaabka Quraanka Kariimka waxaana ay cadeeyeen in aysan hadda kadib la shaqayn doonin maamulkaasi oo ay xoojin doonaan halganka SSC Qaatumo waxa ay ballan qaadeen in ay ilaalin doonaan xogta iyo siraha ciidamada xaq u dirirka SSC Qaatumo oo aan loo gudbin doonin cadowgooda Somaliland waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay Somaliland inaan la shaqaynayn mid la shaqeeyana lacag ka qaadan doonin iyadana lacag ka qaadan doonin maamulka SSC-na halgankiisa aan ka hor iman doonin daacadnimana aan ugu shaqayn doono ma wallahi waa igu wallahi billahi ma ku tallahi waa igu tallahi Allahu akbar magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay maamulka Somaliland inaan la shaqaynayn lacagna ka qaadanay mid la shaqeeyana lacag ka qaadanay halganka SSC-na daacad aanu hayo horumarkiisa ma wallahi waa igu wallahi ma billahi ma tallahi Allahu akbar dhaaranayaa magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay maamulka Somaliland inaanan la shaqaynayn oo lacag ka qaadanay mid la shaqeeyana lacag ka qaadanay halganka SSC-na daacad u ahay horumarkiisa duqa degmada Laasacaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil
ayaana uga mahadceliyey guddoomiyaasha degmooyinka galbeedka laasacaanood sida tuulo samakaab dhabansaar ari caddeeye iyo yagoori go'aanka ay qaateen ee ah in maamulkaasi ay ka go'een oo aysan la shaqayn doonin xitaa haddii ay lacag laaluusha u soo bandhigaan cabdiraxiin cali ismaaciil ayaa sheegay in maamulka somalilan iyo dadka reer SSC qaatumo ay hadda kadib wada shaqayn doonin maadaama dagaal uu ka dhaxeeyo cabdiraxiin ayaa sheegay in xabad uu ka dhaxeeyo dadka reer SSC beesha dhulbahante siiba beesha isaaqna wax xiriir maamul oo ka dhaxeeyana uusan jirin cabdiraxiin cali ismaaciil waxa uu wacad ku maray in halganka uu sii socon doono iyadoo uu ka dhawaajiyey inay jiraan deegaana haatan ay maamulaan maamulka somalilan oo ka tirsan gobolka sool sida yagoori iyo ari caddeeye waxaana uu ballan qaaday in dhammaan deegaanadaasi laga faarujin doono gacantooda oo ay la wareegi doonaan dadka reer SSC waxa uu ku dhiirigeliyey dhammaan madaxda maamulka somalilan ugu magacaaban deegaanada dhaca gobolka sool inay ka waantoobaan la shaqaynta maamulkaasi oo dadkooda ay kala shaqeeyaan guusha halganka SSC qaatumo shirkaasi wuxuu ahaa nuxurkiisu in deegaanada cadowga haysto iyo kuwii laga xoreeyeyba ee dhawaan laga xoreeyay sida dhamasaar oo kale ee hadda ku jira gacanta dadka deegaanka iskale ee SSC ku jira in ay noqdaan dad isla falgala wada shaqeeya is-aamina wada shaqayntii hore ay nimankaasi la lahaayeen maamulka Somaliland hadday tahay kuwa beesha isaaq iyo hadday tahay kuwa beesha dhulbahante ay halkaa kaga tagaan wixii iminka ka bilowdana ay noqdaan niman u shaqaynaya SSC kulankaygu maanta intaan ku daarnaa mar labaad iyo mar saddexaadba waan soo dhaweynayaa hayrtuulayaasha tuulo samakaab iyo dhabansaar sidaad ka warhaysaan tuulo samakaab waxaa weli gacanta ku haysta cadowga maamulka Somaliland iyo nimanka kiraalayaasha ay la shaqaysta ee deegaanka ka soo jeeda yagooriyaga gacanta ku haya guumaysna iyaga gacanta ku haya deegaanada inta kale waa xor dhabansaar waa xor balharac waa xor waxaa gacanta ku haysta dadkii deegaanka waxaanu nimankaa wada galnay axdi iyo aamin waa niman 12 nin ah waxaa ku jira 2 hayrtuule waxaa ku jira guddiyadoodii la shaqaynayay waxaa ku jira rag kale oo rakarmeed ah ama meel ku toos ah markii horena nimanka la shaqaynayay oo waayo la shaqayntii waxa ay deegaanadoodii bay gacanta ku hayeen sida awgeed waxaanu ilaahay hortii maanta ballan ku galnay sida aad arkayseen inay nimankaasi laga bilaabo maanta oo jimco ah aan dib loogu xaman doonin inay Somaliland la shaqaynayaan aan dib loogu xaman doonin inay dhaqaale ka qaataan aan dib loogu xaman doonin inay dadkooda hagardaameynayaan annaguna waanu aaminay saacadda laga bilaabo waxaanu nahay annaga iyo odayaashii halkan ku sugan ee 5 bilood halganka ku soo jiray iyo iyagu dad halganka xaq u dirirka u siman waxaan leeyahay kitaab jaamac baad gacanta saarteen kitaabka waynu garanaynaa qiimaha uu leeyahay nin dhintay oo boqol ah baa lagaga tagaa oo laga samraa waxaan filayaa 12 kaan nimaan xaas lahayn kuma jiro nimaan mas'uulayn kuma jiro dhaartuna waxay socotaa baa la yiri 3 ab bay socotaa qofkii maanta halka kitaabka dhaarta uu maray wax ka soo celiyo oo axdiga uu ilaahay la galay fulin waaya ilaahay baa la xisaabtami doona awaaqibkeedana uu helaya waxaan rajaynaynaa si kalsooni leh oo tuliime leh oo helime leh inaynu u wada shaqayno danteennana uga wada shaqayno arrinta maanta laasacaanood ka socota iyo deegaanada hoos yimaada waa arrin fii sabiilillaahi waa arrin ilaahay loogu dhowaanayo sababtu waxa weeye nin waliba gurigiisii buu ku jiraa weerar lagu yahay waxa aan leeyahay halganka qasayno inoo ballana inaynu wax iska celinaa inoo ballana inaynu u midownaa inoo ballana inaynu dhaqaalaheena ku bixinaa inoo ballana inaynu cadowga iska kicinaa inoo ballana inagu saanu mar walba aynu sheegno deegaanadeena weerar kuma nihin Soomaaliya waa qabaa'ilo waa kala reero wax sharci oo Soomaaliya ka dhaxaysa waxa jirta dawladda Soomaaliyeed ee caalamku yaqaano
cuqaasha iyo waxgaradka beelweynta jaamac siyaad ayaa iyaguna ka dalbaday guddoomiyaasha maamulka Somaliland ugu magacawnaa deegaanada galbeedka Laasacaanood ee maanta dhaartay in dhaartaasi ay tixgeliyaan oo ay ogaadaan cawaaqibka ka dhalan karo haddii dhaartaasi ay jabiyaan ee ay la shaqeeyaan maamulka Somaliland oo dagaal uu ka dhaxeeyo dadka SSC qaatumo. Cuqaasha beelweynta jaamac siyaad ayaana waxa ay wacad ku mareen in maamulka Somaliland marnaba aan laga aqbali doonin in uu dadka reer SSC ku soo dhax dhuunto si uu Laasacaanood u qabsado halgankana loo dhabarjabiyo. Guddoomiyaasha oo goobta ka hadlay ayaa iyaguna ballan qaaday in dhaartaasi ay oofin doonaan, waxaana ay sheegeen in halganka SSC qaatumo ay horboodi doonaan dhankoodana ay qoriga ka qaadan doonaan. isugu jira Axmed Siciid iyo Jaamac Siyaad, raggaasi waa raggii barakacayaashii ka soo barakacay Tuulo Samakaab iyo Goori Are Cadeeye iyo rag dhabansaar joogay laftigeeda. Maamulka dhigicabka SNM markii aanu istilay aanu Laasacaanood ku kala tagnay sidaad ogtihiinba waxay sabada dhigteen deegaanada aan hadda kor ku soo sheegay ee Samakaab, Are Cadeeye iyo Yagoori. waxaa laga yaabaa inay saamayn ku yeesheen dadyowgii ay ku qabsadeen meesha. ragga kan 12 ahi waa rag ka yimid deegaanada maamulka SNM-na waxaa noo dhaxaysa xabad iyo dagaal iyo kala go isdhexmar nooma dhaxeeyo, maadaama ay muddo nagaga dambeeyeen la joogista deegaanada ay joogeen. waxaana kala galay tuhum. saaka waxaanu raggan halkan ugu yeedhnay inaannu kalsooni wada dhisanno, xogtooda hello, iswaraysanno, waxyaabihii looga baahan yahay ee kalsoonidu ku dhismaysana aanu marinno. marka saaka halka kan waxaannu ku marinaynaa kitaab, waxaannu ka qabanaynaa saxaafad, qof waliba wuxuu ku caddaynayaa dareenkiisa iyo dadkiisa harti dhulbahante SSC inuu la mowqif yahay. nimanka cadowga ah ama saamayn ha ku yeeshan ama iyo ku yeelan inuu bari ka yahay oo aanu lug ku lahayn, una shaqayn, lana shaqayn doonin, lana sheekaysan doonin, waxna u qaban doonin ayaa halka ka caddaynaya. marka inta aad dhammaystiraan waxay ka mid noqonayaan dadweynihii SSC. maanta oo bishu laba tahay bishii 6aad halkan waxaanu ka cadaynaynaa dawladda hoose ee gobolka Sool ee maamulka SSC khaatumo ka taliyo. waxaanu ka cadaynaynaa ragga iyaga odayaasha maanta la keenay cadaynta laga rabo inaanu horta is cadayno marka horena cadayn. xigaalkuna way istuhmaa, tuhunkuna ma xuma. dalka iyaga iyo dadka iyaga la noo dhaariyay maamulka SLM ee waqti badan dalka haystay ee laga saaray dadka xasuuqay ee laayay aad iyo aad baanu uga xunnahay. waana xabad baa noo dhaxaysa, dagaal baanu la gelaynaa. qof kastoo ha ogaado kii dee nagu xisaabtamayeen inuu maanta caloosha naga sii daayo oo na arkadee ilaa waxay la tahay adduunka lana ka arkaay. anigu magacaygu waa Xasan Salebaan Aadan, anigoo ka mid ah odayaasha deegaanka Dhabansaar, gudida deegaanka Dhabansaareed ee jiidda hore ee ciidamada SSC. anigoo ka mid ah waxaan maanta halkan ka cadaynayaa oo uga cadaynayaa cuqaasha gudida 33 ah, ismada dhaqanka garaadada maamulka SSC, maayarka, dhammaan shacabka reer SSC. halkan waxaan maanta ka cadaynaynaa waxaa la yidhi caanihii maloog madmadowgel. war haddii madmadowna galay xigaalkayo iyo tolkayo dhammaan waxaanu u cadaynaynaa Somaliland inaanan ahayn, lug inaanan ku lahayn, hayb inaanan ku raacin, siyaasad inaanan ku raacin, shaqo inaanan ku raacin. waa cadnahay tolkayo
iyo halganka SSC ka mid baanu nahay Dhabansaareed magaaladeeda markii hore cadow baa haystay cadowgii waa nala ka xoreeyay waxa weeyaan cadowgii waa nala ka xoreeyay reer SSC baa naga xoreeyay dadkayga iyo shacabkayga horena wala dareen baan ahaa waana shaqaynayay haddana waa la shaqaynayaa tuhum baa laakiin nagalay ragga iyaga gudoomiyaha Tuulo Samakaab iyo sida 10 kale oo xubnood iyo aniga 12 kayaga xubnood waxa weeye waanu shaqaynaa halkankana waa ka qayb noqonaynaa waana naloo dhaariyay cidii nagu xisaabtamaysay nala ku tumiyay lahaa Somaliland war Somaliland anaga nama dhalin haybna nala maaha waa dadka reer Isaaq waa dadka madaafiicda nala dhacaya waa dadka maatadayadii laayay waa dadka laayay dhulbahante 500 oo qof iyo 3,000 oo dhaawac waa dadka loo geystay anigu iyaga lama yaabin dadka laayay dadka nagu tumay baan la kala siyaab badnahay ee wala shaqeeyaan dadkaas gaar ahaan anigu waxaan ahay dhaawac reer SSC loo geystay ninka ugu badan baana marka qofka aniga ugu tumaa waa gaali waxa weeye waana u taagnaa halkan reer SSC waana u taagnaa Somaliland xabad baan naga dhaxaysa iyo kala socda waa la socdaanay kuwa hadda rabniirada ay shalay aad la keenay bulaale ka hadlayeen ka ku dhintay nin buu ahaa geel noo hayay waalaan nahayn ina absaal dibad buu ahaa geel iyaga meesha daaqayay soo waxaad gaartay maaha ninada ay dhigaan waxay soo al-shabaab iyo Cabdimadoob baa dhigay ina bulaaliyo waxaan leeyahay ina ambaashay iyo nimanka jaacan sheeganaya war jaacan ma tihiin hadaa tihiin minooyinka meedin geliseen meelaha geelasha dhexdooda ah wadooyinka dadka iyo maatada ay marayaan intaas ka baxaya Cabdimadoob iyo dhulbahante shabaab maaha ninkii dhulbahante ragii baabuurtii Somaliland ay siisay waxa weeye ragii saraakiisha uu ahaa waxa weeye halgankay ku jiraan dadkii waxa weeye Somaliland ka soo baxay kii Mareykan ka yimi kii federaal ka yimi dhulbahanta ka dagaalamaya ya hartihii lagu yimi cid kale ka dagaalamay mayso waxa weeye waxa al-shabaab oo ka xun ninka cadowga raacay ee maatadiisa dilaya ee dul taagan ee xabada iyo minooyinka gelinaya ee dadkiisa xasuuqaya kaasa cadowa intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad daawanayseen tan intaanu dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo